aqoon Dr. Bulxan oo ka tirsan aqoonyahanada Somaliland ayaa waxa uu si ba'an u dhaliilay hadal ka soo yeedhay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo sheegay sida Somaliland uga gaabisay ixtiraafsaadinta Somaliland. Dr. Bulxan oo magaalada hargeysa ugu warramay TV-ga caalamiga ah oo Cable TV waxa uu ku eedeeyay Professor Ismaaciil Axmed Samatar in uu ku soo noqday dariiqiisii qaldanaa isla markaasina uu soo baxay humaagiisii dhabta ahaa. isagoo ka hadlaya Professor Bulxan wuxuu yidhi لكن أحمد ده هذا واقعنا وأفكار إسكاهستي إلا أنت ويني هلك أفكار إسكاهستي دولة فرضنا إلا كوريا سلاشوكي إيتي كوري سإيتيسكي دولة كوريا دولة جري BBC ده مقدر نالها كلام مقدر أركان من Somaliland مرة أيلانا رجي هرتها ناوي إنك ما أنت إليه اعتراف كذا نقول هيا يوم علمي هيا وحلا اليوم ما تجرى مجرو horana dadkii hortaagnaa ma aha isagu inuu ii keenayo ixtiraaf ama uu markii hore uga joogay ama Somaliland uga joogay ma aha karti uu kaga horjoogsadana ma lahayn mid hortaagnana ma laha shacabka Somaliland xukuumadda waxa uu ka yiri haweenka election ama hana dadka la doortay ee halkaa loo diray aniga difaacay shaqadeeda ma لكن كلام الدكتور بوحان أو كهد لا يهلك سبت كبر انت اعتراف رادينتا Somaliland waxa uu sheegay in 1990 beesha caalamku ay gashay qalad weyn isla markaasina dal aan jirin oo la yiraahdo Soomaaliya ay ictiraaftay isla markaasina Somaliland oo haykalkeeda dawladnimo dhan yahay ay ictiraafi waayeen waxaanu yidhi isagu iyo walaalkiiba dadkii Somaliland hortaagnaa ee meesha fursada helaan dareecaynayuu ka mid ahaa ومن بركاتك إذا كنت قرطين أي صوت وشيء لبسوا لبسوا الفي تذكر وضد نحريس له وضد محنكو لها درب الداف طلع وضد قرنا بركات اكتوم إلى كل ذكر صلى وخير نكي وحلا وضعي وطلت بدينايدين لا عاد على قياس كريم بعد حكومة السياسة. إنه تأنوية. دوان دكتور برحان أو أنفلين أتتقانان أيه هذا الله صحافة دكتور سومري. سيدو أركت هذا الذي ساس. ده أنا قلت دبعت عن كاس أو أي جوه يسمى مجرته ضد بدن با مركان هذا يقدر بهذا وعادي أو واحد دبعتيكم مجرته وأنا ضدكوا أوبنان تهاي. anigu ma galo dee dhulka idaacadaha iyo internetka dadka Soomaalidu ay amba ku kaftamaan amba ay isku caayaan amba ay isku xantaan amba waramada ay isku turturaan ma galo laakiin dee meesh hadii la iyo waa iga faaloonaya waxaan ka hadlay waa iyaga dee u taala taas anu Dr. Bulxan aqoontaydu mid gundeer ma ah oo dee Mareykan shirarkan iskugu yimi jirnay laakiin aqoon inta ka sii weyn iskuma aanan lahayn laakiin intii aan aqaanay waxa uu yahaa nin mutacallim weyn jaamacada waaweyn ka soo baxay si wanaagsan wax u bartay arrimahan ku saabsan psychology-ga iyo psychiatry-ga ee shaqadiisu ay ahayd oo doctorate ku qaatay PhD buug wanaagsan oo weyn qoray oo finance fanon ninkii la oran jiray dhanna dhakhtarka maskaxda ahaa dhanna ahaa revolutionary Algerian war of independence dagaalkii Algeria lagu xoreeyay Faransiiska laga xoreeyay فنوم بوكا قري بوك وين أو إلا أنا وانا خستي إما كان قريبو إياه لا يو مرمر با ريفرنس كوسا مايا مركا دكتور بولحان دانو نكسلا سانواقع نوقف نوتر سن حقا قونت أيوها لكن ده دوري الله ما تنسى ما نان معاملة ما نان يلان اسمه نان أرقبة مركا لا دافو ما شاهي هرغيسا سنة كان أنا مالينا ياينا يا حيد نصور دافي أيام معلن سلا ما فيلا أنا هالكي منصور وندقنا أنا قولا للجوجا أي سقي قولا كلنا أي سوق قلنا وانس أرقني وانس سلانة وحنا لبض صدح دقيقة ضد كبضني إنتاس أيانو إسداف سنة مدة دوري الله واتن سنة ضد مركز دل أنا ما لو كسوجين يهي يلا دوري الله تنكاس سنة ضد يو آياتين كيسوه النوضي موجي وحنا سفلا يدينو ننعرف ما قبا أو سيدي وضعينو يهي أنا احترام وإنه وان أوحيا تاهل كاسان دقي talabaad aan ku darayaa waxa weeye anu waxaan ka hadlaa hadalkan malaha uu soo xigtayna uu yahay ee damqay siyaasadda dibadda ee Somaliland oo dee aan doonayo inay guul weyn keento oo dee 24 sanadood yaanu meel ku xidhanna
waan ka daalnay maalku xidhneenkii inaanu albaabku dusha ka xidhan yahay waanu ka daalnay ummadduna way ka daashay marka in laga hadlo dee sida arrintaasi halkay ka jaban tahay iyo sida loo hagaajinayo waa su-aal waktigeegii muddo badan uu taagnaa anigu taasaan ka hadlay waan isku dayay inaan macneeyey waxa maqan waan isku dayay inaan soo dhigo ra'yi daweyn kara oo Somaliland siyaasadeeda dibadeelaydi way fadhiid bay noqotay dhaqaajin kara ayaan soo dejiyay marka hadduu Dr. Bulxan dee hayo taa ku ka duwan oo ina geyn karta dhulka aynu doonayno arrimaha ku saabsan siyaasadda dibadda waa public policy shakhsi ma dee waxaan jeclaan lahayn inuu banaanka soo dhigo marka hadday tiisu hagaagsan tahay oo ra'yi cusub oo hayo waan raacaynaa ummaduna way raaci halkaa way halka maxaan ku rahay tartanku taagan yahay ummadda Somaliland waxaan jecelahay anigii iyo Dr. Bulxan labadayduba inaanu dadka iyo ummadaba jecelnahay si wanaagsan aanu jecelnahay oon doonayno in hore u socoto si badhaadho marka iyaguna nagama filayaan haddaanu nahay dadkii lagu tumayay inaanu aqoon-yahan daa weliba joogaanu nahay dee waxay naga filayaan geeda dhaadheer inaanu ahaano ee aanan jaleelo noqon ayay naga filayaan marka taana halkaasaan ku dhaafay